xafladda qalinjabinta ardayda dufcaddii tobnaad ee ka baxda markaska barashada xifdiga qur-aanka kariimka ah ee Fawzan ayaa maanta lagu qabtay magaalada Boorama. habsami socodka munaasabadani oo ahayd mid si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxa kala soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo ay ka mid yihiin maamulka gobolka, maamulka mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada iyo sayniska, xildhibaano iyo weliba waalidiinta ardayda qalinjabinaysay. munaasabadani oo ay ku qalinjabinayeen in ka badan 100 arday oo xifdiga quraanka ka soo bartay markaska barashada quraanka kariimka ee Fawzan ayaa ka qaybgalayaashii munaasabadu waxay kula dardaarmeen in dadaalkooda halkaas ka sii wadaan ardayda iyagu maanta dhamaysatay xifdiga quraanka, sidoo kalena ay kor u sii qaadaan barashada cilmiga diiniga ah ee la xidhiidha duruusta ay ku soo dhiganayeen markaska Fawzan. ugu horeyntii waxaa halkaas ka hadlay maamulaha markaska barashada xifdiga quraanka kariimka ah ee Fawzan, Sheekh Xuseen Axmed Budul, waxaanu ka warbixiyay taariikh kooban oo ku saabsan marxaladii kala duwanaa ee uu soo maray markasku iyo ardayda maanta ka qalin jabinaysa. markaska Fawzan waxa la aasaasay 2005 ardayda ka qalin jabisay ama quraanka dhamaysay ee shahaadada guddoonsiinay waa 580 dafcadda aan maanta qalin jabinteeda u fadhino waa dafcaddii tobnaad. 3 qaybood bay isugu jiraan. 3 qaybood waa qayb dhamaysay quraanka kariimka oo carabkooda aan sugnay oo xifdigooda sugnay oo aad u dhisan runtii, iyo qayb ka qalin jabinaysa ijaazada kitaabka loo yaqaano manzuumatul jazariya oo abtirkii tajwiidka ah. waa ijaazo, yacni waxay ka sarreysaa waxyaabo fara badan oo waalidku ayna fahamsanayn. waxa weeyaan abtirka aniga laga bilaabo ilaa sheekhi tajwiidka qoray. sidoo kale qaybta saddexaad waxay tahay manzuumatu tuhfatul atfal oo iyadna kitaab muhiim ah oo aad iyo aad iyadna muhiim u ah ijaazadiisii. waa abtirkii tajwiidka, waa 2 kitaab oo nadmi ah. ardadu way ka baxaan markuu dhameeyana uu isku xidhaan inaan wada dadaalo oo kor u qaadno. waxaan wax baraynaa waa dadkeeni, waxaan wax baraynaa waa dhalinyarteeni, waa da'yarteeni inaan kor u qaadno insha Allah ta'ala. sidoo kale waxa iyaguna halkaas waxyaabihii ay soo bartay soo bandhigay qaar ka mid ah ardayda iyagu ka qalin jabinayay markaska Fawzan. ittafaq harfani falmithlani fihima ahaq wa in yakuna makhrajan taqaraba wa fi as-sifat ikhtalafa yulaqaba متقاربين أو يكون اتفقا. sidoo kale waxa iyaguna munaasabadani ka hadlay mas'uuliyiin ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee gobolka Awdal iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliland. waxaan halkan aad uga mahad celinayaa ardayda halkan joogta ee wiilal iyo gabdhaba leh ee quruxda badan leh, ubaxa quruxda badan leh maanta halka ka qalin jabinaya. aad iyo aad waxaan leeyahay hambalyo horta bilow baad tihiin. imika ayaad qalin jabintiinaasi waa tii koobaad, 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 iyo 7 ay rahayn. waxaa la rabaa quraanka inaad ka gaadhaan iyo cilmiga diinta islaamka. shahaadadaha badaneed maqasheen ee degree iyo master iyo PhD iyo maxay baa la soo qaatay maalin walba dhageysataan ayaa la rabaa culumta islaamka inaad ka gaadhaan haddii Ilaahay idin gaarsiiyo insha Allah Ilaahay idin ku sugo. waalidiin ducaynaya mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad. Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanaynaa ubadkeena inuu inaga dhigo kuwa aynu ku indhadoogsano, kuwa aynu ku intifaacno oo adduunyo aakhira bayna anfaca. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وحا حفتدان إله وين تبارك وتعالى هذا الكيس وحفتدان نور كاينة ضدك لدح مرتان أو ضدك برتان أو عقود قنتان أو waxa weeyaan si kordhisata Allah insha Allah ta'ala. ugu dambeyntiina waxaa hadalka soo afmeeray barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal Cawaale Faarax Cilmi, isagoo ku bogaadiyay ardaydu barashada xifdiga quraanka iyo dadaalka dheer ay u soo mareen. sidoo kale waan idin hambalyeynaa oo hambalyo waan idin leenahay. Allah idigu anfaco quraanka aad barateen aad xifdideen, quraanka quluubihiina ka buuxa. runtii wax la barto waxa ugu wanaagsan ayaad barateen. waxaad tihiin dhalin baratay diinta islaamka gaar ahaan xifdiga quraankii. qof quraan xafisan quraanku
waa sharciga ilaahay soo dejiya adduunka korkiisa ugu sarreeya waxaad xambaarsantihiin qur-aanka kuwa in lagu dayda la rabaatiin dhammaantiin rag iyo wiilalba allah idin barakeeyo maasha allah baan idin leenahay ugu dambayntiina waxaa halkaasi abaalmarino iyo shahaadooyinkii lagu guddoonsiiyey ardayda iyagu maanta ka qalinjabiyey barashada xifdiga qur-aanka kariimka ee markaska Fawzaan Ibraahim Suxufi Bulsha TV Boorama.